waxa la yaab leh in qof qur-aanka akhrinaya balse aan fahmin micnihiisa. marka aad barato oo aad fahanto fariinta uu xambaarsan yahay, waxaad dareemaysaa macaan iyo xasilooni aan lagu tilmaamin karin erayo. fahamka qur-aanku waa furaha lagu dhadhansado quruxdiisa iyo hanuunka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير كان نوسو سعودي أي نسي وديدونا بإذن الله. درس جينا ما توحو بلا ميا سورة الصافات آيات سدحيو سديتناد أي إن شاء الله تعالى أو كبلا مدونا وحنا كل ما عندنا آيات بقول إيو أفرتن وانا جزكي سدح يلا باتناد مغرديسي أفريد. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. waxaynu darsigeen hore aynu ka soo hadalnay qisadii nebiyullaahi nuux. qisada nebiyullaahi nuuxna duruus ayaa inoogu jirta. duruusta aynu ka faa'iidaysanaynana waxaa ka mid a sida ay mufasiriintu marka ay noo tilmaameen in allah subxaanahu wa tacaala yacni sida mufasiriintu culimmadu ay leeyihiin nebiyullaahi aadam waxa weeyaan bani aadamka aabahood weeyaan. abulbashar athaanina waa nebiyullaahi nuux, oo nuux bay ka tafirmeen markii la qarqiyey nimankii madaxa adkaa. idan halkan waxay qisada nuux suuratu wasaafaad si kooban bay uga hadashay. waxaa si faahfaahsan uga hadashay suuratu acraaf, suuratu yuunus iyo suuratu nuux. suuratu alcankabuudna aayad keliya haatay ayay markaa kaga hadashay qisada nebiyullaahi nuux. markaa duruusta ugu muhiimsanen ka faa'iidaysanayna waxa weeyaan nebiga qalbiga loo dejinaya oo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay rasuul allow imise sano. dabcan waa la dhibay rasuulka, jaarkiisii, adeerkii, qaraabadii, madaxdii, dhib weyn baa nebiga lasoo gaadhsiiyey. laakiin haddana ilaahay dhibtaasi qalbigiisa may gaadhin, ilaahay baa ka ilaaliyey. marka qalbiga loo dejinaya allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay rasuulkii allow imse sano ayaad qoomkaaga ugu yeedhaysay dacwada? 9 sano. 8-9 sano meelahaas marka aayadkan marka ay soo degeen. nebiyullaahi nuux 950 sano ayuu qoomkiisa markaas u yeedhayay. marka qalbi dejin ayay markaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ay u tahay. marka halkana waxay ka hadashay in qisadan qaybtan lagu xusay nebiyullaahi nuux fi suurati wasaafaat waa maqtac keliya oo ka hadlaya badbaadintii nebiyullaahi nuux. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wa ina min shiicatihi, nebiyullaahi nuux kooxdiisa ama kuwa shabaha alla ah ee la mid ah ee dariiqadiisa haystaay. wa ina min shiicatihi, nebiyullaahi nuux kooxdiisa ama cidda shabaha alla ah ee dariiqadiisa haysataay la ibraahim, ibraahim baa ka mid a. id jaaa udkur xus id wakti jaaa ou ula yimiday ibraahim rabbahu rabbigii biqalbin qalbi saliimin fayow. id qaala wadkur xus nebi allow id wakti qaala au yihi nebiyullaahi ibraahim liabihi aabihi au ku yidhi wa qowmihi iyo qoomkiisa maadaa tacbuduuna maxaad caabudaysaan? aifkan aalihatan duuna allaahi turiiduun, turiiduuna ma waxaad rabtaan hee aalihatan ilaahyo duuna allaahi ilaahay gadaashii ama ilaahay sokadii hee inaad caabudaan ifkan been abuura dartii. ifkan masabidid iyo been abuur. turiiduuna ayaad rabtaan aalihatan ilaahyo inaad caabudaan duuna allahi ilaahay sokadii. famaa dannukum muxuu yahay malihiinu aad ka malaynaysaan birabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigooda. fanadara wuxuu fiiriyey nebiyullaahi ibraahim nadratan
eegid mar ah fi nujuumi xidigaha. qoomkii nebi ibraahim ayaa xaflad bay lahaayeen, cuntay sameeyeen, cuntadii ayay waxay kaga tegeen sanamyadii agtooda si ay usii barakeeyaan. iyaguna dadkii o dhan bay soo saareen. markaa nebiyullaahi ibraahim muu raacin. markaasaa wuxuu ku yidhi xidigahan eegayo saasay aaminsanayeen, iyagu qoomku aaminsanayeen, marka haddaan idin raaca waxbaa igu dhacaya. markaasay idhaahdeen dariiqadiinniibu kusoo dhacayo ku farxeen, way ka tegeen markaa. fa nadara wuxuu fiiriyey nadratan eegid mar ah fi nujuumi xidigaha. faqaala wuxuu yidhi innii anigu saqiimun waan xanuunsanayaa. fatawalluu way ka jeesteen canhu xaggiisa markuu sidaa ku yidhi, mudbiriina xaal ay yihiin kuwa dhabarka jeedinaya. faraaqa markay ka tegeen ayuu u leexday ilaa aalihatihim ilaahyadoodii. faqaala wuxuu yidhi nebiyullaahi ibraahim, alaa ta'kuluuna miyaydaan cunaynin? cuntadan laydinkaga tegeed barakeynaysiin miyaydaan cunaynin? maa lakum maxaa idin ahaadayo laa tantiquuna adu hadlaadihiin? markay cuntadiina cuni waayeen una jawaabi waayeen waa dhagxaane. faraaqa ayuu u leexday nebi ibraahim calayhim korkooda darban bilyamiin. faraaqa calayhim darban bilyamiin. faraaqa wuxuu u leexday calayhim korkooda darban isagoo garaacaya, yadribu darban bilyamiini midigta si xoog a ugu garaacaya, ama labada gacmood intuu ku qabto markaas ku garaacaya. fa aqbaluu ilayhi way ku soo noqdeen isaga yazifuuna faaqbaluu ilayhi yazifuun. faaqbaluu way ku soo noqdeen ilayhi nebiyullaahi ibraahim yazifuuna xaal ay yihiin kuwa degdegaya. marka ay informationkii heleen ee warkii u gaadhay ee la dhihi ilahyadiinnii baa la burburiyey ayay soo yaaceen. qaala markaasaa wuxuu ku yidhi nebiyullaahi ibraahim, atacbuduuna ma waxaad caabudaysaan ma tanxituuna idinku waxaad qorqorteen? haye wallaahu allana khalaqakum isaga ayaa idin abuuray idinka, wamaa tacmaluuna iyo camalakum iyo camalkiinaba, idinka iyo waxaad samaynaysaan iyo camalkiinaba ilaahay baa idin abuuray. dabcan halkan dan intaa aan qisada aan yar sharaxno, wuxuu inoo tilmaamaya alla subxaanahu watacaala nebiyullaahi ibraahim inuu dariiqadii nebi nuux uu hayay ee towxiidka markaa uu hayo. ilaahayna subxaanahu watacaala uu la yimiday qalbi fayow. nebi ibraahim qalbigiisu wuxuu ka fayoobaa shirkiga iyo qurunka oo dhan. marka alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay rasuul alla waxaad xustaa wakhti au ibraahim ku yidhi aabbihii iyo qoomkiisa maxaad caabudaysaan? ma wax masabid ah oo been abuurad ah ayaad ilaahya ka dhiganaysaan ood alla subxaanahu watacaala sokodiisa aad caabudaysaan? haddaad sidaas samayseen muxuu yahay malaha aad ka malaynaysaan caalamiinta rabbigooda? marka haddaba munaasabad ayaa jirtay, xaflad ah oo u dalbaadegayeen oo diini ah oo alla iswada raacay. cuntay sameeyeen. cuntadii markay sameeyeen bay ay sii ag dhigteen ilaahyadoodii si ay ilaahyadoodu ay u sii barakeeyaan cuntada, ay dabadeedna ay u soo noqdaan ay u cunaan. marka nebi ibraahim bay ku yidhahdeen, ibraahino kaalayna raac. markaasaa ibraahim fa nadara wuxuu fiiriyey nadratan eegid mar ah fi nujuum xidigaha. marka qoomku waxay aaminsanaayeen xidigahay eegi jireen. marka dad noocaa ayaa oo mushrikiina oo markaas waxa aaminsan. markaa si au iyaga u qanciyo ayuu nebi ibraahim wuxuu ku yidhi xidigahan eegayo haddaan idin raaco habaar ama waxbaa igu dhacaya. markaasina waa haddaa dariiqiinniibuu ku soo dhacay, kuma soo dhicine isagu waxa weeyaan waa sarbeebe. faqaala wuxuu yidhi innii anigu saqiimun waan bukaa. markaa bukaantaasi waxaa lagu macneeyey culimmadu ku fasireen inuu ka waday xanuunka hayaayey waa shirkiga iyo asnamyadan ayaa qalbigayga xanuuniyey oon ka xumahay. sida awgeed nabigeena sala allahu calayhi wasalam xadiis ayaa ka sugan. xadiiskaasi markaas uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam, shafaacat alcudmaa marka khalaa'iqtu ay u tegaan aadam oo ka cudur daarto, nuux ay u tegaan ka cudur daarto, ibraahim u yimaadaan nabiyullaahi ibraahim 3 markaasaa cudurdaar buu sheeganayaayo wuxuu yidhi anigu 3
mar ayaan been sheegay markaa u tega muuse u tega markaas saddexdaasi waxay dhahan kow halkan inuu ku yidhi markaa waan xanuunsanayaa laakiin xanuunkaasi la sheegay bukhaari oo kale wuxuu ku magacaabay baab fii macaariid mamduuxa cala alkadib waa sarbeebitaanka yacni la sarbeebayo qofku isagoo aad moodday inuu been sheegay marka waa beenta ammaanan weeye marka taasi waa taa uu yidhi waan xanuunsanayaa laakiin xaqiiq ahaan uu xanuunsanayo xanuunka qalbiga ayaa isagu niyaddiisa wuxuu ku hayay xanuunka hayaay inuu ahaa markaas shirkiga uu diidan yahay iyagu laakiin waxay u fahmeen tan daahirka markaa ta labaadna waxay ahayd markay ku yidhaahdeen ma adiga ku sameeyey ilaahyadayada sidan wuxuu yidhi bal facalahu kabiiruhum kabiirkoodaaseen bal weydiiya taasina waa ta labaad ta saddexaadna qisada aad wada taqaanaan saara markii boqorkii uu gacanta kusoo daagay gacantii markaa ay qalashay markii su-aashii la weydiiyey uu yidhi markaa waa walaashay marka waana walaashiiyoda walaashiisa markaa muslimadda markaas weeyaan marka nebiyullaahi ibraahim intuu u yimiday markay ka jeesteen ay ka tegeen ayaa markaa cuntadii buu arkay cunto badan oo ag yaalla markaasuu yihi maxaad u cunin miyaydaan cunayn maxaad u cuni laadihiin ma dhagax baa u jawaabaya markaasuu ku yidhi maxaad u hadli laadihiin markii ay u jawaabi waayeen ayaa intuu u leexday ayuu garaacay uu burburiyey marka warkiibaa suuqa galay nimankiioo xafladdii ku jira ilaahayadiinni baa la burburiyey oo la baabi'iyey markaas iyagoo yaacayo waalan bay soo noqdeen marka nebi ibraahim qalbigiisu uu degan yahay markaasaa wuxuu ku yidhi ma waxa atacbuduuna ma tanxituun ma waxaad caabudaysaan waxaad gacmihiina ku qorqorteen wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay isaga ayaa idin abuuray idinka iyo camalkiinaba wa camalukum waa masdariya marka haddii maada laga dhigo camalukum idinka iyo waxaad samaynaysaan ilaah baa idin abuuray qaaluu waxay yidhaahdeen ubnuu lahu markii marka ay arrintii dhammaatay ee ku caddaatay nebiyullaahi ibraahim ayaa waxay go-aan ku gaadheen sidan markaa qaaluu waxay yidhaahdeen ubnuu lahu u dhisa bunyaanan dhis fa alquuhu oo dhiskaa inteed dhistaan naar iyo xaabo ku gura oo shida dabadeedna fa alquuhu ku rida filjaxiimi dabka aad shideen jaxiimada ku rida fa araaduu waxay la dooneen bihi ibraahim kaydan shirqool iyo dhagrid wajacalnaahum waxaan ka yeelnay alasfaliina kuwa hoos maray kuwa hooseeyaan ayaa ka yeelnay khasaaray wa qaala wuxuu yihi nebiyullaahi ibraahim markii markaa ilaahay uu badbaadiyey ayuu haddana ilaahay noogu qisoonayaa markuu badbaadiyey waxa rumeeye keliya haatay nebiyullaahi luut oo adeerkii dhalay ayaa rumeeyey iyo saara wa qaala wuxuu nebiyullaahi ibraahim inii anigu daahibun waxaan tegaya ilaa rabbii rabbigay xaggiisa sayahdiini allaah uu hanuunin doonaa rabbigayow hablii isii min asaalixiina kuwan wanaagsan xaggooda wax iga siiyo waxaad iigu arsaaqdaa duriyad wanaagsan fabasharnaahu waan ka aqbalnay oo markaasaan ugu bishaaraynay bighulaamin inan ama wiil xaliimin dulqaad badan falamaa goortii balaga uu gaadhay macahu nebiyullaahi ibraahim maciisa assacya inuu raaco falamaa goortii balaga au gaadhay macahu sacya aabbihii au gaadhay inuu raaco qaala wuxuu yidhi ibraahim yaa bunaya rabbigayow yaa bunaya wiilkaygiyo falamaa goortii balaga au gaadhay inankiisii macahu sacya aabbihii inuu raaco qaala wuxuu yidhi ibraahim yaa bunaya wiilkaygiyow inii anigu araa waxaan ku arkay ama waxaan arkaa aan ku arkay fil manaami riyo annii anigu adbaxuka anigoo ku gowracaya fandur maadaad eeg maadaa taraa waxay kula tahay fandur eeg maadaa taraa waxay kula tahay uu la tashanaya markaa qaala wuxuu yidhi ismaaciil yaa abati aabbow ifcal samee maa tu'mar wax lagu amrayo satajidunii aniga waad iheli doontaa in sha allahu ilaahay haddii au doono min asaabiriina inaan ka mid noqdo kuwa sabra waan ku sabri doonaan markii au riyooday oo riyadii inankiisa u sheegay in ilaahay manaam lagu faray inankaaga gowrac
oo ismaaciilna ku yidhi aabbow ilaahay hadduu ku faray amarka ilaahay ku faray fuli, aniguna waxaad iga heli doontaa hawshaas inaan kaa caawiyo markaan saabiriinka ah kuwa sabraan ka mid noqdo. ilaahay wuxuu leeyahay falamaa aslamaa markay hoggaansameen ibraahim iyo ismaaciilba arrinkii alle u hoggaansameen, ibraahimna uu la tashaday, ismaaciilna aabbihii au yeelay, ilaahay wuxuu faray watallahu ou legday ibraahim ismaaciil ama inankiisii, watallahu au legday inankiisii liljabiini ou u dhigay dhinaca si au u gowraco. falama aslama markay hoggaansameen watallahu au legday ibraahim inankiisii xaguu u legday liljabiini dhinaca si au u gowraco. jawaabtu maxay noqonaysaa? dahara sabruhumaa, sabirkoogii baa muujismay. ilaahayna markaa wuxuu ku abaalmariyey wanaadaynaahu waan u dhawaaqnay an yaa ibraahiimu ibraahiimow qad sadaqta aru'yaa waad xaqiijisay riyadii, inaa anagu kadaalika sidaasaa najzii aan ugu abaalgudnaa almuxsiniina kuwa samafalayaasha. ina haada ilaahay wuxuu leeyahay arrinkaasi, ina haada kani lahuwa albalaa'u almubiin, waa imtixaan weyn oo cad weeye. wafadaynaahu alle wuxuu leeyahay waxaan ku furannay inankii, wafadaynaa waxaan ku furannay hu inankii bidibxin mid la gowraco cadiimin oo weyn. wataraknaa waxaan kaga tegnay calayhi nabiyullaahi ibraahim fi laakhiriina ummadaha dambe hanaa'an xasanan ammaan wanaagsan. salaamun salaami ha ahaato calaa ibraahim ibraahim korkiisa. kadaalika sidaasaa najzii anugu abaalgudnaa almuxsiniina kuwa muxsiniinta. inahu ibraahim min cibaadina addoommaha yaga ayuu ka mid ahaa almu'miniina mu'miniinta ah. wabashirnaahu waxaan ugu bishaaraynay ibraahim markuu arrinkaa imtixaanka uu ka soo baxay biisxaaqa isxaaq nebiyan isagoo nebi ilaahay ah, min asaalixiin saalixiintana ka mid ah. wabaaraknaa waan barakaynay calayhi korkiisa, wa calaa isxaaqa isxaaqna waan barakaynay. wa min duriyatihimaa waxaa ka mida ubadkooda muxsinun mid samafala, wadaalimu linafsihi iyo mid naftiisa dulmiya. wa min duriyatihimaa waxaa ka mida ubadkooda muxsinun mid samafala, wadaalimu linafsihi iyo mid naftiisa dulmiya, mubiinun dulmi cad. alle waxaa marka qisadii nebi ibraahim halka ayay kusoo gabagabaytay. markii haddaba ay arkeen aayaadka hore waxay tilmaamayeen ay ku caddaatay inuu ibraahim dilay, ibraahim inuu markaa baabi'iyey asnaamtii ou isagu garaacay ou isna auna inkirin, ayaa marka waxay go-aan ku gaadheen inay markaa ciqaabaan ciqaab aan taariikhda lagu sheegin. marka maxay dhahdeen qaaluu ubnuu lahu bunyaanan faalquuhu fi ljaxiim, god qoda ama oo markaa dhis sameeya, markaa saxaabo ku gura fara badan, markay holacdo ku tuura. markaa waxay mufasiriinta qaarkood ay tilmaamaan in dumarka ay odhan jireen marka aan dhalo ama hadday xanuunsadaan marka aan bogsado ayaan xaabada soo guri doonaa oon ku guri oo si loogu gubo markaas ninka ilaahadeyda gubay ee wax ka sheegay. marka iyagu waxay leeyihiin ugu dhowaada nebiyullaahi ibraahim gubitaankiisa. marka macnaha waxa laga fahmaya inuu ahaa mashruuc aad iyo aad u weyn, muddo fara badanna markaas qaatay. marka aayadda waxaa kaloo laga fahmayaa in haddii ay iyagu yidhaahdaan ku tuura, inuu dabku iyaga marka uu leefayo oo holaca uu leefayo. sida awgeed waxay dhahdeen dhisa gidaar dheer, dabeedna gidaarka isaga kusoo tuura. mufasiriinta qaarkood waxay manjaniiq bahal lagu gano markaa dadka ayaa markaas lagu soo ganay. mufasiriinta qaarkood ma israa'iiliyaadku waxay tilmaamayaan shimbirihii samada marayay inay marka ay gubtay naartaasi. waxaasoo dhan iyagoo sameeyey
ee ilaahay subxaana wa tacaala kelmad keliya haatay ayaa markaas la yidhi, kelmaddii markaa naartii damisay. haa qul yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim. haa naaray qabow noqo oo dabku qabow isku bedel, ibraahimna badbaadi. waa xitaa qabow waa lagu dhintaa moogtahay. haddaba ilaahay wuxuu leeyahay waxay la dooneen dhagar, laakiin iyagaan ka dhigna kuwii hoos maray ee hooseeya oo ku khasaaray markaa. markii arrinkaasi dhammaatay ayaa haddana nabiyullaahi ibraahim wuxuu yihi waqaala inii daahibun ilaa rabbii sayahdiin rabbi hablii min alsaalixiin wabashirnaahu bigulaamin xaliim. ha aayaadkaas markaa soo socdan. wuxuu deganaa nabiyullaahi ibraahim, wuxuu deganaa ciraaq, ha anbaar gobolkan marka iminka la yidhaahdo. marka ciraaq ayuu deganaa. marka waxaa rumeeye keliya inankii adeerkii au dhalay ee luut ah, fa aamana lahu luut iyo saara ayaa rumeeyey, isagii saaro keliya hata ayaa rumeeyey. markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala markaa wuxuu tegey ardu shaam. ha wuxuu yihi marka ilaahay baan xaggiisa u kicitimayaa, ilaahay baa hanuunin doona. waa markuu ogaaday qoomkiisu inuuna khayr lahayn oo wax rumaynaya markaa auna jirin qoomkiisa ka mida. markaasuu ilaahay baryo, ilaahu rabbigayow hablii min asaalixiin, awlaad saalixiina isii. markaasaa wuxuu yihi waxaan ugu bishaarayna alleh wiil dulqaad badan. haddaad dulqaad badan maqashana waa nebiyullaahi ismaaciil, caliimna waa nebiyullaahi isxaaq. marka qur-aanka markaas sida mufasiriintu ay leeyihiin. markii haddana ilaahay uu siiyey wiilkii isagoo 86 sano jira, 86 sano jir ayuu ku dhalay markaa ismaaciil. isagoo intaa markaa da'diisu yahay oo xaaskiisuna ay madhalays ahayd, cajuusadna ay ahayd, isna uu nin weyn yahay. wiilkii markii u dhashay ayuu wuxuu ilaahay tusay riyo wuxuu ku arkay isagoo inankiisii gowracaya. markaasuu inankiisi u yeedhay, wuxuu ku yidhi wiilkaygiyow waxaan arkay filmanaami riyo anigoo ku gowracaya. ha eebba wiilkaygiyow eeg adigana waxay kula tahay. waa ibraahim waa nebi, inankiisu nebi buu noqon doona. markaasuu inankiisi wuxuu ku yidhi yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min asaabiriin. aabbow ilaahay wuxuu ku amray yeel, aniguna waad iheli doontaa inaan insha allahu tacaala an ahaado kuwa saabiriinta ah. wuu aqbalay. ilaahay subxaana wa tacala isagoo ammaanaya buu yihi falama aslamaa ibraahim iyo ismaaciil arrinkii ilaahay markay u hoggaansameen ee isku dhiibeen, arrinkiina damca ibraahim inuu fuliyo oo wiilkiisii dhinaca ou legdow dhinaca au u dhigay, oo mididii au soo qaatay, waxaa muujismay halkaas sabirkoodii. ilaahayna muxuu ugu abaalguday wanaadaynaahu, markaasaan u dhawaaqnay an yaa ibraahiimu ibraahiimow qad sadaqta ru'yaa, waad xaqiijisay riyadaadii, waad kaga dhabaysay. ina anagu kadaalika saasaan najzi aan u abaalmarina almuxsina kuwa muxsiniintaha. in markay amarka yeelaan aan wiilkii auna gowricin, ilaahay subxaanahu watacaala marka waxaa la yidhi markuu loo dhawaaqay ayuu sidaa buurtii u eegay, neef amhina marka soo socda markaa meeshii. marka alle wuxuu leey ina haada kaa ah in wiilkiisa isagoo ibraahim nin weyn ilaahay ugu deeqay oo 86 sano jira, 86 sano isagoo jira wiilkaa au dhalay. waa maxay? lahuwa albalaa'u almubiin. kaasi ama kani waa imtixaan weyn weeyaan, wuuna ku guulaystay nabiyullaahi ibraahim. guushiina maxay abaalkii noqotay? wafadaynaahu, waxaanu ku furannay inankii bidibxin mid la gowraco cadiimin oo weyn. ilaahay wuxuu leeyahay wataraknaa calayhi fi laakhiriin, waxaan kaga tegnay nabiyullaahi ibraahim ummadaha dambe hanaa'an xasanan, ammaan wanaagsan. salaamun calaa ibraahim, inay ku salliyaan magaca ibraahim marka la xuso. marka ambiyadii oo kale nebigu wuxu uhi sala allahu calayh wasalam, ambiyadu waxay la yimaadeen wixii ana aan la imiday, sidaa awgeed magacooda haddii la sheego ku salliya. marka waa anaga inaynu dhahna haddana haaruun iyo muuse maxaan dhaha calayhim assalaam. marka la yidhaha ilyaas calayhi salaam, ibraahim calayhi salaam. alle wuxuu leeyahy kadaalika sidaasaa najzi ugu abaalmarinaa, kadaalika sidaasaa najzi aan u abaalmarina almuxsiniina kuwa samafalayaasha. inahu ibraahim min cibaadina almu'miniin, addoomaha yaga mu'miniinta ayuu ka mid ahaa. wabasharnaahu, marka imtixaamka ku guulaystay ee ilaahay wuxuu leeyahy wabasharnaahu, waxaan ugu bishaaraynay
biisxaaqa isxaaq ayaan ugu bishaaraynay nebiyullaahi ibraahim nebiyan isagoo nebi ah min asaalixiina saalixiinta ka mid a wabaaraknaa waan barakaynay calayhi ibraahim wacalaa isxaaqa iyo nebiyullaahi isxaaq wa min duriyatihimaa waxaa ka mida ubadkooda ibraahim iyo isxaaq muxsinun mid samafal ah wadaalimun linafsihi iyo mid naftiisa dulmiyey mubiinun oo dulmigiisuna cad yahay marka halkan mufasiriintu waxay u badan yihiin dabiixaasi inuu ahaa nebiyullaahi ismaaciil mufasiriinta qaar qilo ahna way jiraan oo le markaas waa isxaaq marka qowlka ibnu jariir iyo mufasiriinta caamatan mufasiriin ay qabaan qowlkaasaa saxa waxaana xoojinaya bay dhahdaan culimmadu dhowr shay kow in inanka hore inuu gowraco iyo inanka labaad inanka hore ee intaasoo sano uu sugayey inuu gowraco ayaa imtixaan ahaan ka daran haa iyo riwaayad qaarkood israa'iiliyaadku waxay leeyihiin bikran marka yacni inankii ugu horreeyey marka inankii ugu horreeyey inuu ahaana waa ismaaciil iyo inankiisii keliya riwaayadaha qaarkood baa le markaas inankiisa keliyana marka waa ismaaciil haa marka waa sidaas marka dabiixu marka waa ismaaciil weeyaan idan walaalayaal qisada nebiyullaahi ibraahim dhowr wax ayaynu ka faa'iidaysanaynaa kow waxaynu ka faa'iidaysanaynaa in uu qofka xuni taalixu au saalix dhali karo waayo nebi ibraahim aabihii mushrik buu ahaa ibraahim buu dhalay qofka wanaagsanna qof mushriko xun au dhali karo oo waxaa ka mida nebiyullaahi nuux baa ka mida inankiisii isna inuu marka uu gaalnimo au ku dhintay in kaa la gowracayna marka inuu ahaa ismaaciil ayaynu ka faa'iidaysanaynaa sidoo kale odxiyada meesha laga soo qaatina inay sunna ibraahimiya ay tahay oo halkan markaas laga soo qaatay nebigeenuna markaas au ku raacay marka innagana markaas saa aan u samayno riyada ambiyaduna inay tahay markaas waxyi ayaynu ka faa'iidaysanaynaa iyo markii imtixaanka uu ku guulaystay ibraahim ilaahay markaa inuu doortay ou ka dhigay markaa nebiyullaahi ibraahim khaliil marka uu doortay markaa allah subxaanahu watacala halkana waxaa laga gudagalayaa qisadii nebiyullaahi muusa alla wuxuu leeyahay walaqad manannaa wallaahi ama dhab ahaan waxaan ku galladaysanay calaa muusa nebiyullaahi muusa wa haaruuna iyo haaruun yacni inay nebiye noqdaan wanajaynaahuma waxaan walaqad manannaa waxaan ku galladaysanay calaa muusa muuse wa haaruuna iyo haaruun wanajaynaahuma waxaan ka badbaadinay wa qowmahumaa iyo wanajaynaahuma waan badbaadinay muuse iyo haaruun wa qowmahumaa iyo qoomkooda min alkarbi alcadiim dhibaatadii weynayd baan ka badbaadinay taana culimmadu waxay leeyihiin waxa weeyaan gumaysigii au ku hayay iyo in fircoonna la hanfiyey iyagana laga badbaadiyo o la qarqiyey markaa fircown wanasarnaahum waanu u hiilinay fakaanuu waxay ahaayeen hum alghaalibiin kuwii adkaaday wa aataynaahumaa waxaanu siinay muuse iyo haaruun alkitaaba almustabiin kitaabka cad wahadaynaahumaa waxaanu ku hanuuninay muuse iyo haaruun assiraata almustaqiim jidka toosan wataraknaa waxaan kaga tegnay calayhimaa muuse iyo haaruun korkooda fi laakhiriina ummadaha dambe ama kuwa dambe hana'an xasanan ammaan oo marka magacooda lasoo qaaday inay dhahdaan calayhum assalaam inaa annaga salaamun salaan ha ahaato calaa muusa nebi muuse wa haaruun iyo haaruun wataraknaa waxaan kaga tegnay calayhimaa muuse iyo haaruun korkooda fi laakhiriina ummadaha dambe hana'an xasanan ammaan wanaagsan maxaan kaga tegnay salaamun salaan calaa muusa muuse korkiisa ahaato wa haaruuna iyo haaruun ina annaga alla ah kadaalika sidaasaa najzi anugu abaalgudnaa almuxsiniina kuwa muxsiniinta ah wa inahumaa iyaguna min cibaadinaa addoommahayaga ayay ka mid yihiin almu'miniina alla rumeeyey marka qisada nebiyullaahi muusa iyada markaa sidaasa si kooban looga hadlay allah haddana wuxuu ka hadlayaa nebiyullaahi ilyaas wa ina ilyaasna la min almursaliina kuwii la diray buu ka mid ahaa rasuul buu ahaa id
waqti qaala au yidhi liqowmihi qoomkiisa uu ku yidhi alaa tattaquuna alla miyaad ka baqdaan oo alla miyaad iska jirtaan atadcuuna ma waxaad u yeedhaysaan baclan sanamka baclo laydhaa watadaruuna miyaad ka tegaysaan axsana alkhaaliqiin kuwa wax jaangooye abuura ka ugu khayr badan oo ah allaha ma allaad ka tegayseen rabbakum rabbigiin wa rabba aabaa'ikum iyo aabbayaashiin rabbigood alawaliina hore fakadabuuhu way beeniyeen ilyaas qoomkiisii fa innahum iyagu lamuxdaruuna kuwa la keeni weeye ee naarta la xaadirin doono ilaa cibaad allaahi addoommada alla maahine kuwaasi ilaadaasi waxa weeyaan waa istithnaa munqatic oo macnihiisu yahay laakine cibaad allaahi addoommada alleh almukhlasiina ee la saaf yeele la doortay kuwaasi naarta la keeni maayo way ka badbaadayaan wa taraknaa waxaan kaga tegnay calayhi ilyaas fi laakhiriina ummadaha dambe hanaa'an xasanan ammaan wanaagsan haa salaamun salaam calaa salaamihee salaamun salaami calaa ilyaasiin haa ree ilyaas ama ilyaas korkooda ahaato marka kelmadda ilyaas bay aayaddu war sheegtay tanna ilyaasiin laba qowl ayay culimmada mufasiriin ku tilmaamaan midi waxaa leeyahay marka ilyaasna waa isagii ilyaasiinna waa aala ilyaas haye ka kalena waxa weeyaan waa wasniga marka mikaal iyo mikaa'iil mikaala iyo mikaa'iil ilyaas iyo ilyaasiin ina annaga alla ah kadaalika sidaasaa najzi aan ugu abaalgudna almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah innahu ilyaas min cibaadina addoomahayaga ayuu ka mid ahaa almu'miniina mu'miniinta wa ina luutan luutna ha marka nabillaahi ilyaas ha nebi buu ahaa ummadda loo soo dirayna lama sheegin marka mufasiriinta qaarkood ayaa tilmaama ina markaa magaalo ku taala yaman loo soo diray laakiin yacni wax toosoo daliil toosa lama hayo ibnu mascuud isagu wuxuu qabaa ibnu cabaas baan ka wadaa adugu ibnu mascuud baan malaynaya ama ibnu cabaas ibnu mascuud wuxuu yidhi marka in au yahay marka nabiyullaahi idriis laakiin qoolka waa laga xoog badan yahay oo marka inuu sida qur-aanka uu sheegay nebi ilaahay uu soo diray u ahaa qoomka loo soo diray aanu sheegin baa loo badan yahay ina annaga allah kadaalika saasaa najzi aan ku abaalgudnaa ina annaga allah kadaalika sidaasaa najzi aan ugu abaalgudnaa almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah innahu ilyaas min cibaadina addoommahayga ayuu ka mid yahay almu'miniina mu'miniinta ah wa ina luutan luudna la min almursaliina kuwa la diray ee rususha ayuu ka mid ahaa udkur xus wakti nebi allow id wakti najaynaahu aan badbaadinay luut wa ahlahu iyo ahalkiisa ajmaciina idaylkood ilaa cajuuzan habar mooyaane ama habar maahine fi lghaabiriina iyadu waxay ka mid noqotay kuwa cadaabka ku hadha uma intaa kadibna damarnaa waxaan baabi'inay alaakhariina kuwii kale wa inakum idinkuna qureeshay idinkuna kuwiinan qur-aan ku soo degaya carabayna latamuruuna waad martaan calayhim nebiyullaahi luut meeshii lagu halaagay korkooda musbixiina xaal aad waabariisanaysaan yacni markaad waabariisanaysaanna waad martaan wa bileyli habeenkiina waad martaan afalaa tacqiluuna miyaydaan wax ku qaadanayn qisada nebi luutna si kooban baa markaa loo tilmaamay inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu halaagay dhammaantood yacni iyo waxa weeyaan ehelkiisana badbaadiyey xaaskiisu laakiin cadaabkii ayay ku hadhay qoladana waxaa laleeyahay war wax ku qaata nebi luut haddaad nebi maxamed hadalkiisa qaadan weydaan dee sidaa luut loo galay idinkama foga miyadan caqli lahayn qisadii u dambaysay wa ina yuunusa nabiyullaahi yuunus la min almursaliina kuwa la diray ayuu ka mid yahay id wakti abaqa au u baxsaday ama au u dhuuntay ila alfulki doonta xaggeeda المشحون إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين
id wakti abaqa au u baxsaday ama au u dhuuntay ila alfulki doonta xaggeeda almashxuuni laga buuxiyey la buuxiyey doonta la buuxiyey xaggeeda fasaahama uu qori tuurtay ama uu qori ritay fakaana wuxuu noqday oo ka mid noqday min almudxadiina kuwa laga adkaaday ee qori tuurkii laga helay qorigii baa isaga kusoo baxay markaasaa ilin doonta ayaa dhaqaaqi weyday baa la yidhi doontii markaa waa in qof laga tuuraa baa la yidhi markay tuuraanba isagaa soo baxa markii meeshii qur-aanku ma sheegin ma isagaa istuuray mise way tuureen laakiin markii sidaa baddii doontii laga tuurayba faltaqamahu alxuutu waxaa liqay nibirinkii xuutkii oo sugyaa liqo ilaah baa usii diyaariyey wa huwa muliim isaguna xaal uu yahay mid eedaysan maadaama uu ka soo baxay isagoon ilaahay subxaanahu watacaala amar ka soo qaadan falowlaa annahu hadduuna ka mid ahaan lahayn falowlaa haddaanu ka mid ahaanin ama auna ka mid ahaan lahayn falowlaa annahu hadduuna ka mid ahaan lahayn falowlaa hadduuna ka mid ahaan lahayn annahu kaana falowlaa annahu kaana waxaan soo raacina intaha falowlaa annahu kaana hadduuna ka mid ahaan lahayn min almusabixiina kuwa tasbiixsada marka uu nibirinku liqay iyo ka horba lalabitha wuxuu ku nagaan lahaa fii baطnihi nibirinka ama xuudka calooshiisa ilaa yowmi yubcathuun ilaa maalinta dadka lasoo saarayo ilaa qiyaamaha alla wuxuu leeyahy fanabadnaahu waxaanu ku tuurnay bilcaraa'i xeebta meel bannaan wa huwa xaal isaguna saqiiman oo yahay mid markaa buka oo dee nimirinka calooshiisa markuu galay yacni dubkii baa ka baxayoo sidaa markaas dhib baa soo gaadhay waambatnaa waxaanu u soo saarnay calayhi lahu isaga shajaratan geed min yaqtiin bocor ah wa arsalnaahu waxaanu u dirnay ilaa 100,000 100,000 aw yaziiduun ama bal yaziiduun ama in ka badan fa aamanuu way rumeeyeen famatacnaahum waanu raaxaynay ilaa xiinin ilaa inta waqti laga gaadhayo haddaynu qisada nebiyullaahi luut cafwan nebiyullaahi yuunus aynu soo koobno nebiyullaahi yuunus wuxuu ahaa nebi ilaahay ugu soo diray qoomkiisa markaa qoomkiisii way dhibeen xaqii bay qaadan waayeen isagoon ilaahay amrin ayuu markaa doon raacay nebigeena waad xasuustaan sala allahu calayhi wasalam 13 sano ayuu maka joogay saxaabadiisu way hijroonayeen qaar waxay tegayeen xabasha qaar madiinay tegayeen laakiin isagu amarkii ilaahay buu sugayay markii la amray ayuu baxay markaa nebiyullaahi yuunus sidaasuu markaa uu sameeyey markuu saa sameeyey ayaa markaa doontii uu raacay ayaa markii dadkii laga buuxiyey ayay dhaqaaqi weyday markaasaa la yidhi waa in adu waxbaysan samayn jireen waxa la ogaaday cilmigoodii waxay ku ogaadeen in qof laga tuuro markaasaa lagu heshiiyey qori tuuri baan samaynayna si cadaalada u timaado marka way qori riteen marka qoriga la ridaba isagaa soo baxa markaas waa nebiga badda ku ridi mayne adu mar walba markuu ku soo baxayay ayaa markii dambe badda lagu tuuray ilaahay wuxuu u diyaariyey nibirin ama xuud sugaya markii saa loogu tuurayba nibirin afka lahaya ayuu galay marka ilaahay nibirinkii wuxuu amray inuuna markaa taabanin waayo hadduu sidaa cuno uu baabi'i lahaa soo ma ilaahay baa nibirinka abuuray badda ilaahay baa abuuray doonta ilaahay baa abuuray nebi yuunus ilaahay baa abuuray marka waa laga badbaadiyey markuu markaa sidaa u galay ayuu muxuu yidhi markaa laa ilaaha ilaa anta markaasuu tasbiixsaday inii kuntu min adaalimiin markaasuu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay falowlaa annahu kaana haddaanu ka mid ahaan lahayn min almusabixiina kuwa tasbiixsada lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcathuun wuxuu ku jiri lahaa caloosha nibirinka ama xuudka ilaa inta dadka lasoo saaray qiyaamuhu markaa au dhacayo
haddaba nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam waxaa laga yaabaa qof inuu is yidhaahdo, waxaa laga yaabaa qof inuu kusoo dhaco shaydaan ku qurxiyo, anugu waa anigaa dhibta u sabraya, nebi yuunus au sabri waayey. wuxuu yihi markaa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam, yuuna qofna odhanin waxaan ka khayr badanahay nebiyillaahi yuunus, ha odhan buu nebigu sala allahu calayhi wasalam. arrinkaa markaa waa la inaga nahiyey. sidaa awgeed nebigeennu sala allahu calayhi wasalam kelmadda ayuu markaa au yidhi. marka haddaba markii la badbaadiyey nebiyillaahi yuunus waxaa hadhay marka haddana markii la badbaadiyey nebiyillaahi yuunus ilaahay wuu baxnaaninayaa. alle wuxuu leeyahy fanabadnaahu bilcaraa'i wahuwa saqiim. ilaahay marka nibirinkii baa la amray inuu kusoo tuuro xeebta. marka maxaa soo gaadhay? dhib baa soo gaadhay nebiga calayhi salaam. marka haddii marka beedda marku cayayaankii baa cunaya waxyaala kale, marka ilaahay uu baxnaaninaya. ilahay wuxuu leeyahay waambatnaa calayhi shajaratan min yaqtiin, waxaan usoo saarnay geed bocor ah. marka geedka bocorku wuxuu caan ku yahay, awalan caleemuu leeyahay, laba waa la hadhaystaa, geedkan ubada marka laga sameeyo dhulku markaa saa ugoglaya. waxau kaluu leeyahay cayayaanku uma soo dhowaadaan, ilan jirkiisii dubkiisii meel guda ayuu ku jiro, dubka uu ka baxaye. marka ilahay baa markaa baxnaanin nebigeenna. ilaahay subxana wa tacala haddana waxa loogu abaalguday in markaas qoomkiisii ay wada rumeeyaan. waa anaga hore u soo marnay, waa qaryadii intee cadaab lagu xukumay, haddana ilaahay subxaana wa tacaala cadaabkii ou ka joojiyey, xaqiina ay wada qaateen. marka ilaahay wuxuu leeyahy wa arsalnaa ilaa 100,000 aw yaziiduun, waxaan u dirnay markaa 100,000. marka ilaahay subxaana wa tacaala tirada saxda u garanayaaye, ee innagaa qiyaas ahaan leeyahy markaynu aragno waar intaasi ama waa 100 ama way ka badan yihiin. marka waa innaga, laakiin ilahay tirada saxda u garanaya. fa aamanuu way rumeeyeen, famatacnaahum waanu raaxaynay ilaa xiinin, ilaa intii waqti laga gaarayay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.